Hay'adda Salaam Hub oo kaashanaysa Muslim Food Bank ayaa maanta markii labaad raashin gargaar gaarsiisay 130 qoys oo barakacyaal oo ku sugan iskuulka Shashafe Primary ee magaalada Mandera. Qoysaskan oo dan yar ayaan isugu jira caruur, haween iyo waliba dad waayeela ah waxaana ay heleen raashinno isku dara. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay oo u mahadceliyay Muslim Food Bank iyo Salaam Hub. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Aniga Aamin Maxamuud ah. Waxaan ka soo qaxay magaalada Balad Xaawo. qaas ahaan 8 baan ka soo qaxay shaliiraha Kamaradoon. Waxaan galay col baan galay xabad baan soo bixisay. Haddana waxaan joognaa iskuulka Shafay 22 habeen baan barinay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Biyo waa naloo shubaa, badar waa nala siiyay, mar baa nasi mar lamaad baa nala siiyay. Walaalaha naga muslimiinta noo gurmaday way ku mahadsan yihiin mar walba mar hore mar dambaba. Hadee way mahadsan yihiin hadda raashin baan hor yaala oo maxay ahayd inaan la wareegno la guddoonsiin la rabaa. Ma sha Allah. ummadina garab istaagta oo walaalaha ah way mahadsan yihiin meeshii ka soo bixiyana badal khayr qaba Ilaahay u guliya Ilaahay idinkiis magaliyada oo wanaagsan badqabka aan badqabna oo habeen iyo dharaar waxna dhiba ay jirin in wax noo galmo wax noo dhima ay jirin wayna ku mahadsan yihiin anagana. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. magacaygu waa Seen Abduro Yuusuf waxaan ka soo barakacay degmada Balad Xaawo qaasatan xaafadda 7 dagaal ayaa halkaas nagu qabsaday. waa soo barakacnay muddo qariiban 25 bermi ah waxaan joognaa Mandheeraan joognaa iskuulka Shafay aan joognaa walaalaha naga way noo gurmadeen reer Mandheera alxamdulillah wax hore iyo wax dambe hadda maanta talaado waxaan loo keenay raashin waan hor yaalaa haddana waa qaadan rabnaa waan ku wareegi rabnaa way ku mahadsan yihiin walaalaha noo keenay muslimiinta dhammaan way mahadsan yihiin way ku mahadsan yihiin waana ka guddoonnay way mahadsan yihiin sadaqato jaari Allah uga dhigo Ilaahay ha kun laba jibaaro Ilaahay boqorka subhanahu wa ta'ala wixii muslim oo garab istaago Allah garab istaago waa mahadsan yihiin walaalaha naga mahad ayaan ugu haynaa waka intaas assalaamu calaykum wa rahmatullaahi walaalaha naga la soo dhaweeyay annaga oo soo qaxnay oo soo jabnay oo joogna degmada Mandheera waa mahadsan yihiin intaas waxaa dheer sagaal beer mid ay ugu socdo ilmeyga waa firir maqan yihiin Ilaahay baa meesha aan keenay Ilaahay baa ugu nabadgelyo hoosna waa helay hoyisna waa helay biyana waa helay nabadgelyona waa helay haddana raashin baa hor yaalo saakana la siin haya waa ku mahadsan yihiin 90% ninka hadee maqlay iyo ninka hadda dalka ka dheer iyo ninka hadda jooga ha maqlo raashin baa hadda la siin haya waana inta la siisayna waa anaga waa mahadsan yihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi. Qoysaskan ayaana ka soo barakacay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Balad Xaawo. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay Chairmanka Salaam Hub iyo xubin ka socotay Muslim Food Bank. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Adan Harun, chairperson for Mandera Salaam Hub CBO. Today we are here at Shafshafay IDP camp where many people who are free from their home due to the ongoing war in Somalia have run. We are supporting, this is the second time we are supporting this community. Today we are giving food, assorted food item to 135 households here, consisting of 10 kg rice, 8 kg beans, 3 kg ungasima, 1 kg sugar and cooking oil and salt to 135 households. The community are very appreciative, and also we really appreciate our donor Muslim Food Bank who are always standing and supporting the community. Thank you Muslim Food Bank, and to our volunteers who have done this job. Thank you so much. God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Muslim Food Bank again, and we are here at Shafshafay Primary School where refugees have sought shelter here after fleeing their homes due to the ongoing war. We were here before and we are here again to strengthen our general support to these brothers and sisters from Somalia, and to the team of Mandera Salaam Hub volunteers who did the work of packaging and distribution. We say thank you so much, and may God bless you.